marwe shukri xaaji ismaaciil baandare wasiirka deegaanka iyo horumarinta miyiga Soomaaliland oo baara 6dii iyo barkii subaxnimada saaka ka soo degtay madaarka caalamiga ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa kadib markii ay dalka Mareykanka kaga qayb gashay shir caalami ah oo laga hadlayay isbeddelka cimilada adduunka oo lagu martay qaaday 22 wadan oo ay Soomaaliland ku jirto waxa madaarka Hargeysa ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga iyo qaar kamid ah agaasimayaasha waaxaha wasaaraddaasi markii ay wasiir shukri xaaji ismaaciil baandare soo gaadhay madaarka caalamiga ee magaalada Hargeysa waxay warbaahinta uga warantay waxyaabihii uu ku soo dhamaaday shir ay kaga qayb gashay dalka Mareykanka iyo faa'iidada ay Soomaaliland kala soo laabatay waxaan maqnaa imika muddo bil ah ayaan maqnaa ilaa waxaan soo maray dhowr meelood baan soo maray ilaa San Francisco Mareykanka dhowr meelood baan ka soo maray ilaa Washington ilaa San Francisco back haddana Washington haddana Canada haddana waxaan soo wareegay marka hawl aad iyo aad u wanaagsan oo qiimo badan ayaanu soo qabanay adduunyadu maanta waxay ogaatay cimiladii inay isbedeshay oo si weyn isu bedeshay marka cimilada ay isbedeshay cid kasta way saameysay cid aanay saameyn dawladda aanay saameyn ma jirto marka waxa wixii lagu heshiiyay Paris maaragtay shirka ka horeeyay Paris lagu heshiiyay in la dhaqan geliyay iyo dawlad kasta waxay ka qabatay ayaa laga hadlayay oo la soo bandhigayay cid kasta way ka hadashay dhinacii science-ka laga hadlay maaragtay dadka scientists-ka research-ka sameynayeen ama cilmi baarista sameynayeen ku soo saareen cimiladu si isu bedeshay iyo dawladihii ama ha ahaado ka soo qaadba ilaa madaxweyne ilaa heer wasiiro ilaa heer maaragtay barasaabo ama governors ilaa heer meeyaro siday wax uga qabteen cid kasta siday wax uga qabatay iyo dadka iyagu sida shakhsiga iyaguna wax uga qabanayay marka waxaad moodaa imika in xoog loogu soo jeestay aad iyo aad baynu runtii ugu amaanayn Soomaaliland aynu ugu amaanayn waxaanu ka qabanay waxaana ugu weyn dadka sidaynu u wacyigelinayna waxa daba ku xigtay halka aad taagantiin halkaad ka sii qaadaysaan stepka aad imika joogtaan halkaad uga sii gudbaysaa marka stepkaana maxaa kaga gudbaysaan tibaana la yiri waxay marka 3 baybar baynu inagu ku lahayn saddexdeennaba si wanaagsan bay noogu fuleen saddexdaba dad aad iyo aad u qiimo badan ayaynu ku wada jiray oo ka doodaynay dadkii shacabka ahaa ee weydiinayay su'aalaha si fiican baa looga jawaabay meediyadiina wareysanaysay si wanaagsan marka waxaan filayaa maqaamkii aynu joognay ama halkii aynu markaa taagnay horeynu uga soo kacnay markaad u eegto environmentka Cabdirasaaq Jaamac Nuur Naakhuud agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweyn kadib wasiir Shukri Xaaji Ismaaciil baandare ku amaanay dadaalada dhanka deegaanka la xiriira ee ay waday muddadii ay ku sugnayd shirka waxaan halkan maanta ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga marwo Shukri Xaaji Ismaaciil oo runta marka la eego muddo safar dibadda ugu maqnayd safarkaas shaqo oo ay ku maqnayd hawlo la xiriira horumarinta deegaanka gaar ahaan isbeddelka cimilada saameynta uu ku leeyahay caalamka oo dhan gaar ahaan Soomaaliland waxaa nasiib wanaaga inay marwo Shukri ka mid ahayd 4 wasiir ama 4 mas'uul oo dhammaan qaaradda Afrika laga soo casumay oo dawladda Soomaaliland magaceeda lagu soo casumay shirkaana ay kaga qayb gashay magaalada San Francisco oo ay isugu yimaadeen wufuud ka kala socotay caalamka oo dhan oo gaaraysa ilaa 3,000 oo qof lagu qiyaaso